I like football. Me too. I don't like swimming. Me too. Why? sabab aan u dhihi karin me too. sabab aan u adeegsan karin xaggan me too. Me too anigaba sidoo kale soo maa. cashirkan ayaan ku baran doonaa sababta aan u adeegsan karin me too xaggan oo kale. So let's get started. maanta cashirkan wuxuu ku saabsan yahay marka aad qof ku raacsan tahay hadal uu yiri sidaad ugu raaci lahayd. calashaan haddii aan si kale u dhahno sidaa u dhihi lahayd anigaba sidoo kale calashaan fikirkaad qabtid oo kale ayaan qabaa sidaan u dhihi lahayn ayuu maanta cashirkeenu ku saabsan yahay. laba xaaladood ay leedahay marka la dhahayo anigaba sidoo kale oo la adeegsanayo Soomaali ahaan waa anigaba sidoo kale laakiin English ahaan sida loo dhaho laba si ayaad u dhihi kartaa. Me too waxaa loo isticmaalaa for positive. jumladdu marka hadalku positive markuu yahay qof hadalkiisu uu positive ahaa markaad ku raacaysid waxaad adeegsanaysaa me too sidaan tusaalahaba ku soo aragnay. For example, I like football. I like football. Me too. xaggan jumladdaani waa positive waay diidma kuma jirto calashaan positive waxaa loola jeedaa hadalka caadiga aan diidmada lahayn. I like football oo kale markuu qofka yidhaahdo hadal caadi waa hadalkiisa sax. so markaasoo kale markaa ku raacaysa waxaa leedahay me too anigaba sidoo kale. I like football kubadda cagtaan jecelahay anigaba sidoo kale waan jecelahay me too. I can speak English anigu English ayaan ku hadli karaa markaa ku raacaysa marka waxaa leedahay me too aniguba English waan ku hadli karaa. I am from Somalia anigu waxaan kasoo jeedaa Soomaaliya. jumladdaasoo kale iyadana markaa ku raacaysa waxaa leedahay me too anigaba sidoo kale Soomaaliya ayaan kasoo jeedaa. ka waran hadday diidma timaado marka hadday diidma timaado jumladdu meeshay positive ka aalatay negative tay diidma tahay maxaa la sameynaya iyadana beddelkeeda waxaa la adeegsanayaa me neither. meesha dhireed me too waxaa leedahay me neither. Me neither marka waxaa loo isticmaalaa aan leenahay for negative oo negative diidmada ayaa loo isticmaalaa. For example, I like football meeshay ka yeetan waxaa waa I don't like football kubadda cagta ma jecli. I don't like football kubadda cagta ma jecli. hadduu qofku sidaasoo kale yidhaha marka I don't like football me too ma leedahay no ma dhehaysid waxaa leedahay me neither aniga xatee ma jecli. I can't speak English kuma hadli karo hadna maxaa leedahay markaa me neither aniga xatee kuma hadli kari. I am not from Somalia anigu Soomaaliya kama soo jeedi marka ku raacaysa waxaa leedahay adiguna me neither aniguba kuma hadli kari. waa labada xaaladood marka for positive waxaa adeegsanaysaa me too kubadda cagtaan jecelahay English waan ku hadli karaa Soomaaliyaan kasoo jeedaa. I am a teacher oo kale yiri macallin aan ahay me too anba macallin aan ahay. I am student me too anba arday baan ahay. hadday diidma naqatana waxaa adeegsanaysaa me neither for negative. For example, tusaalayaashan aan soo sheegnay ayaa ka mid ah I don't like football kubadda cagta ma jecli me neither anba ma jecli. I am not a teacher macallin ma ahi me neither anigu xatee macallin ma ahi. I am not a student arday ma ahi me neither. I don't know you kuma aqaan me neither anba kuma aqaan. so marka haddii diidma tahan waxaa adeegsanaysaa me neither. marka me too oo for positive ah iyo me neither oo for negative ah. maanta cashir aad u fudud ahaa oo ku saabsanaa sida qof hadal loogu raaco marka aad rabtid inaad dhahdid anigaba sidoo kale sida English ugu dhihi lahayd marka ayaan ka soo hadalnaa haddii la yiraahdo. haddaba xaggan marka waxaa noo taala su'aal yar oo kooban very simple ah. I hate you waan ku necabahay si ay ugu raacay amba waan ku necba markaa rabtid ma waxaa dhahaysaa me neither amba sidoo kale mase waxaa leedahay me too amba sidoo kale sidaa dhihi lahayd xagga commentiga noogu soo qor insha allah. and thank you very much insha allah sidoo kalena la sii wadaag ardada kale iyo asxaabta kale meel dheerna gaarsiin insha allah.